boqolaal arday oo ka mid ah ardayda sanadkan ka qalin jibiyay dugsiyada sare iyo sanadihii hore ayaa bishii Juun horaanteedii iska diiwaan geliyay imtixaanka YOS oo ay iska kaashanayeen shirkadda Go Turkan Study iyo jaamacadda Tokat oo ka mid ah jaamacadaha ugu tayada badan dalka Turkiga. imtixaan YOS oo ku saabsan qaab loojiga ee qabanaysa jaamacadda Tokat University waxa qabanaa sanadkiiba tiro 2 jeer 3 jeer oo kale waxa uu qabanaa ardayda Soomaaliyeed ee jecel inay wax ku soo bartaan dalka Turkiga. waxaan rajaynaynaa inay helaan jaamacado scholarship free ah iyo jaamacado qiimo jaban. YOS exam, international student exam. imtixaanka YOS waa mid caalami ah wuxuuna ka kooban yahay 50 su'aalood oo la xiriirta xisaabta dimoodriga. imtixaanku wuxuu ardayda jaanis u siinayaa inay iska diiwaan geliyaan 17 kuliyadood ilaa 68 kuliyadood. sidoo kalena waxay fursad u tahay inay helaan waxbarasho jaamacadaha caalamiga ee dalka Turkiga. ka qaybgalida imtixaanka YOS waxa uu ardayda u suuragelinayaa inay ku soo waxbartaan jaamacadaha ugu tayada fiican dalka Turkiga kana qiimo jaban jaamacadaha Yurub. imtixaanka YOS waa imtixaan qabuul ah oo lagu qiimeynayo hadba kulliyadda uu doonayo ardayga inuu ku biiro. sidoo kale imtixaanka YOS waxa uu ka kooban yahay 80 su'aal oo isugu jirta 45 su'aal oo suuragalnimo ah ama IQ question halka 35 kalena ay tahay xisaab. gelista imtixaanka kadib ardayda ayaa kaga mahadceliyay shirkadda Go Turkan Study maadaama ay u fududeysay inay galaan imtixaanka YOS iyaga oo jooga dalkooda. magacayga waa Marwa Xasan Maxamed hadda ka soo baxay imtixaanka YOS waxaan rajaynayaa inaad darajo fiican ka keeno insha Allah. aad u mahadsan yihiin Go Turki inay nagu caawiyeen imtixaanka sida ugu quruxda badan. magacaygu waa Cabduuli Botaan Guure waxaan nasiib u yeeshay oo ka mid noqday ardayda gashay imtixaanka YOS oo qaadayso hormuudna ay ka tahay shirkadda Go Turkan Study. shirkadda Go Turkan Study oo ah hoggaanka shirkadaha dalka maadaama fiisooyinka waxbarasho ay ardaydu ugu soo saarto waqtiyo kooban. alxamdulillah ilaahay baa mahad iskale maanta fiisooda halkan ku godoomaya waxaan mahad iskale shirkadda Go Turkan Study oo aad nooga caawisay inaan ku soo waxbarano dalka Turkiga. aad ay u mahadsantahay shirkaddana ardayda kale ee hadda u fadhiisanaya imtixaanka YOS iyagana waxaan u rajaynayaa nasiib wacan. waa mahadsantihiin sida wanaagsan inuu soo saarto fiisaha. weli waxaa jira wejiga labaad ee imtixaanka YOS oo ay ardaydu kaga faa'iideysanayaan inay ku soo waxbartaan jaamacadaha ugu tayada badan dalka Turkiga oo ay helayaan 80% qiimo dhimis waxbarasho ama scholarship. shirkadda Go Turkan Study waxay ogeysiinaysaa dhammaan ardayda ka qalin jibisay dugsiyada sare sanadkan iyo sanadihii hore iyo ardaydii aan ka faa'iideysanin imtixaanka YOS wejigiisa koowaad in shirkaddu ay dib u bilowday diiwaangelinta imtixaanka YOS wejigiisa labaad. diiwaangelintu waxay ku eg tahay 9 bisha 9aad 2021. haddaba soo booqo xafiisyada shirkaddu ay ku leedahay magaalooyinka Muqdisho, Boosaaso iyo Garowe. mahadsanidin.